al-shabaab ayaa gowracay wiil iyo aabihiis kadib markii ay ka shakiyeen kuna eedeeyeen fal inta badan ka dhaca deegaanada maamul goboleedyada dalka. soo dhawaada saaxiibayaal, Cumar Guux ayaan ahay. dhacdadan halka sida gaarka ay uga dhacday, cidda loo geystay iyo cidda geysatay iyo sababta loo geystay ayaan halkan doonayaa inaan idin kula wadaago. haddii uu muuqaalka idin soo gaarnaa si shirkada saaxiibadana la sii wadaaga qaybta hoose ee faaladan aragtidiina nagula wadaaga saaxiibayaal. mar kale soo dhawaada. deegaanka lix mooro oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaa la sheegay in saq dhexe ee xalay Allah u naxariistay halkaas ay al-shabaab ku gooraceen aabe iyo wiilkiis oo gurigooda ku sugnaa. waxaana dhacdadan la sheegay in ay timid kadib markii shabaabkii halkaasi joogay ama deegaankaas yimid ay ku arkeen dadka deegaanka inay baaritaano sameeyaan oo xaafadaha ay soo galaan. markii ay baaritaanada wadeen kadibna waxaa la sheegay inay gurigooda kala baxeen odaygan amaba aabahan iyo wiilkiisa oo la tilmaamay in la geeyay fagaare duleedka deegaankaasi lixda mooro lagu magacaabo ku yaala. halkaasna ay dadka shacabka ay isugu yeereen. subaxnimadii hore ee saakana la sheegay in halkaas ay ku qaleen misna ay ku gowraceen. wiilkan iyo aabihiis waxay shabaabku sheegeen ama loogu sheegay inay ka shakiyeen oo ay ku tilmaameen inay ahaayeen jaajuus misna daba dhilif u shaqeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. waxaana halkaas markii ay gowraceen kadib ay dadka u sheegeen in cid walba oo halkaasi ku sugan oo ay tahay in ay la shaqeynayaan ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya sidani oo kale ay u qaban doonaan. dadka deegaanka oo aan soo xiganay ayaa tilmaamay in odaygan iyo wiilkiisa ay kamid ahaayeen dadka deegaanka arrimaha lagu soo eedeeyna wax shaqo ah aysan ku lahayn. waa ilo aan soo xiganay oo wararkaasi noo soo dusiyay. sidoo kale waxaa la sheegay in deegaankan dhinacna uusan ku sugnayn al-shabaab iyo ciidanka dowladda, laakiin mararka qaarkood ay shabaabku ku soo goostaan halkaasna ay ku dileen. marka laga soo tago waxaa jiray habeennimadii xalay ilaa iyo saacadihii lasoo dhaafay tiro dagaalamayaal ah oo la sheegay inay soo buux dhaafiyeen deegaankaasi lixda mooro lagu magacaabo, halkaas oo ay doonayaan inay ka duulaan tagaan misna ay weerar ka qaadaan. dadka deegaanka ayaa sidoo kale tilmaamay in shabaabku markii ay dhacdadan sameeyeen oo ay odaygaasi iyo sidoo kale wiilkiisa gowraceen kadib tiro dagaalamayaal ah ay deegaanka keeneen, sidoo kalena kuwa kalena duleedka deegaanka ay dhigeen. waxaa jira dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u xoogan oo ay bilaabeen ciidamada deegaanka Ceel Axmed lagu magacaabo oo isagana duleedka ka ah magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. sidoo kale lix mooro iyagana waxaa dadka deegaanku ay soo sheegayaan in shabaabkii halkaasi ciidamada keensay qaarkood dib loo celiyay, halka kuwa kalena ay weli ku sugan yihiin. wax uu damacoodu yahayna ilaa iyo hadda aanan la ogeyn. laakiin halkaas waxaa jira ama jirta cabsi xoogan oo ay qabaan, kaasi oo ah in ay weerar kala kulmaan ciidanka dowladda oo iyagana halkaasi la sheegay inay kusii wajahan yihiin saacadaha soo socdana ay deegaankaas dib u qabsan doonaan.